waftigii warkacay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ee socdaalka safarka ugu maqnaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya ayaa dib ugu soo gadaal noqday magaalada Hargeysa ayadoona si diiran loogu soo dhaweeyay gagida diyaaradaha ka aadan Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. madaxweynaha ayaa safarkan waxaa ku welinayay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Maxamed Biix Yunis, wasiirka arrimaha gudaha Cali Maxamed Nuurcadde, wasiirka madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan, marwada koobaad ee qaranka Marwo Aamine Waris Sheekh Maxamuud Jirde. mudane madaxweyne waxa salaantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. mudane madaxweyne ku soo dhawow. madaxweynaha ayaa salaanta kooban ee uu ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka kasoko waxa uu salaano soo dhexmaray dadweyne tiro badan oo soo dhaweyntiisa ugu sugnaa gagida diyaaradaha Cigaal. intaasi kadib waxa madaxweynaha iyo waftigiisa loo soo garbiyay qolka nasashada VIP ee madaarka Cigaal, halkaasi oo warbaahinta faahfaahin uu ka siiyay ujeedada uu daarnaa safarkiisa iyo sidoo kale kulamadii uu la soo qaatay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Haile Mariam. waxaan dalka Itoobiya ku maqlay 2 maalmood waxaan isla Prime Minister Haile Mariam waxaanu ka hadlay in la xoojiyo xiriirka labada dal iyo hawlaha inaga dhaxeeyay xagga nabadgelyada iyo xagga kasta ku shaqo leh. marka safar wanaagsan oo safkarasho ayaa noo dhacay insha Allah taala waxaan rajeynayaa inuu marka xiriirkeenu mar walba mar kale ka sii wanaagsanaado dalka inuu jeerka nahay waxa inaga dhaxaysa wada shaqayn iyo inuu ka wada shaqeyno nabadgelyada iyo dhaqaalaha iyo waxa kale inaga dhaxeeya mar walba. marka xiriirkeenu mar walba si joogto ah loo sameeyo way wanaagsan tahay. marka safar wanaagsan oo fiican oo wax ku oola ayaa noo dhacay insha Allah taala waxaan rajeynaynaa halka ka sii wari doono. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad buu madaxweynuhu maadsan yahay aad buu madaxweynuhu maadsan yahay intaa kadib warbaahinta ayaa isku dayday inay madaxweynaha weydiiyaan dhowr su'aalood oo la xidhiidha safarkiisa iyo sidoo kale xaaladda guud ee dalka, ayadoona halkaasi afhayeenka madaxtooyada Somaliland si cad uga hor istaagay warbaahinta inay weydiiyaan madaxweynaha su'aalaha la xidhiidha xaaladda dalka. intaasi kadibna xubno ka mid ah uriyaashii ku sugnaa gagida diyaaradaha Cigaal ayaa si wada jira warbaahinta ula hadlay iyaguna cabasho ballaaran ka muujiyay sida ay uga xun yihiin su'aalo la'aanta ku habsatay safarada kala duwan ee madaxweynuhu ugu baxo dalalka dibadda. maaha markii ugu horeysay ee socdaal madaxweynaha iyo wafdi uu hogaaminaya ay dib ugu soo laabtaan magaalada Hargeysa laga hor istaago warbaahinta inay su'aalo weydiiyaan. Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Royal magaalada Hargeysa.